بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معلمة حياة حسن فارح ودكتور اسكول كإمام النووي قرده waxaan u imi training muddo 2 maalmood 28 iyo 29 bisha afraad oo ah trainingaas jeed oo ka hadlaysa photograph waxaan ka baranay waxyaabo badan oo kamid ah sawirada loo kala qaado markeeda hore ay ahayd in sawirada moodina inaan naqaano saa loo qaado laakiin haddana la baran noocyada sawirada aad ayaan ugu mahadinayaa qolada Nova Days UNICEF ee barnaamijka insha Allah waxaan noqon dadka ku dhaqmi doona sida loo qaado barnaamijka. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Cabdiraxmaan Ciise waxaan ka socdaa waaciye iskuul Garaar. runtii tababarka halkan lagu qaatay waa tababar muhiim ah. waxaan rajeynayaa ardayda inay qaataan aan ugu fidin doono tababarkan qaaday mid la mid ah iyo mid ka sii fiican waan arrin aan ku dhiirigelinayno ardayda. magacaygu waa Fartuun Jaamac waxaan jiraa 17 sano waxaan u jeclaaday kaamirada inaan soo bandhigo muuqaalada dhibaatada haysta Soomaaliya in aan ku kaydsado saaxiibada sawiradooda iyo saaxiib la ahay oo badan waxaan rabaa inaan ku soo bandhigo dhibaatooyinka ka jira Puntland waxa ka jira dhibaatooyin roob la'aan ah Soomaaliya sidoo kale waxa ka jira dagaalo sokeeye al-shabaab iyo dawladda u dhaxeeya kuwaas iyo kuwa la mid oo kan rabaa inaan ku soo bandhigo kaamirada. magacaygu waa Cabdinuur Cabdiqaadir waxaan ahay arday 17 sano jir ah waxaan ka helay oo aan rabaa kaamirada inaan u bartay si aan u barto sida looga qaado sawirada si aan hadhow ugu qaado sawiro aan u yeesho khibrad waxaan uga dan leeyahay inaan sawiro qurux badan u qaado si aan tusaale ahaan hadhow hadda markaan iskuulka dhameeyo kale si aan saaxiibaday aan sawiradooda si xasuus ah u haysto aan uga qaado sawiro badan. بسم الله magacaygu waa Aamin Cabdi Musaalax waxaan jiraa 18 sano waxaan jeclahay inaan ku soo bandhigo waxyaalaha caqabadaha imaanaya oo ku imaan kara dalka gudihiisa kuwaas oo ay kamid yihiin dagaalada oo kale roob la'aanta kale dabaylaha waxyaalaha ku keen kara isbedelka dalka waxaan filayaa inay yimaado isbedel kuwaas oo laga hor imaanayo caqabadaha ka imaanaya dalka sidii wax loo tiri lahaa sida dawladaha naga sareeyo kale maadaama chance-ka uu yahay chance waxaan jeclaan inaan sawiro dagaalada sokeeye kuwaas oo ah caqabada ugu xun ee dalka haysata waxaan aad u xiiseenayaa wax laga qabto waxaan dareemay inay sii burburayaan dalkayga in sii dhamaanayaan macdanta dalkayga sida dadka sokeeye oo soo galay dagaalka waxa ka faa'iideysanayaan dadka dalalka shisheeye dagaalka dhexdhacay inta dadku dagaalka maqan yihiin ayaa wax guranayaan macdantayda dalkayga taasoo ka imaanaysa caqabado badan waxay dareemeen in dhaqaalaha dalkaygu uu sii burburayo taasoo ay ka imaanayso in dadkii dalka iska lahaa ay ka tahriibaan ama ay ka tagaan dalal kale aadaan taasoo ah waxay garan waayeen inay ka faa'iideystaan taasna waxa u bedelaya dad kale oo ka faa'iideysanaya si xaq darro ah. magacaygu waa Cabdishakuur waxaan jiraa 14 sano waxaan u rabaa waxaan dareemayaa marka aan kaamirada qaadayo sida hadhow dadka aan ka qaadayo in hadhow ay ga qaadaan oo kale sida waalidkay farxad weyn baa aad uga dareemayaa waan ku faraxsanahay boqoshada noogu timaatay waxaan dareemayaa marka aan sida hadda ninka aan uga qaaday kaamirada waxaan dareemayaa farxad weyn oo aan maanta lagu baray kaamirada waxaan rabaa inaan xaggan ka sii wado oo aan noqdo kaamiryahan. مدمنا